Virginia ولكن ويفاشك ما تحرب إذا وذا ور مهمة وربعتها الدكتور القريان سيدا الجزيرة رايترز كارديان إن إندبندنسي أو كوسابسن دad وحنتها أو كوسب عوضك تركيا كل شيء شيء وضعك غريكا dadkaas waxay ahayd dad laba dowladood baa hayeen oo ka baxay wadanka Turkiga gobolada xiga in xaga koonfurta ku socday dhinaca Greega labada dowladood baa waxa ku dhacay dabaysha oo aad xoog weyneed waxay ku dhufteen dhagax weyn ku dhuftay badda ah labada dowladood waa dhaceen doomaha marka ilaa xiliga dadka waxa soo tabixinay dadkii ku dhintay meesha dadka waxa labada dowladood mid waxa saarnaa dad ku dhow 45 midna 40 marka waxa ku dhintay sidii ay qoriyaan warbaahinta Greega waliba Greek report in dadka dhintay ay yihiin iminka la xiligan 24 qof dadka dhintay dhamaantood waxa dadka la soo badbaadiyay hadda ee badalkoodu diyaaradaha soo badbaadiyeen Greega helicopteriska waxay ahaayeen u badnaayeen dad Iraaqiyiin Afghanistan iyo Iran dhinaca dadka dhintay waxay sheegeen iminka 3 qof waxay ahaayeen Afrikaan dad madow gaar ahaan waxay sheegeen dadka ahaayeen dad u badan Soomaali oo dumar meedhana marka dadkii meedadkooda waxa haya ciidamada dowladda Greega waxa lagu hayaa jazirada Lesbos ee ku taala dhinaca u dhaxaysa Greek iyo Turkiga waliba dhinaca u dhow Turkiga ayaa lagu hayaa marka runtii dad badan baa jiro marka la kasta warbaahinta ay qorayso Soomaaliya marka waxa loo baahay dadka arrimahan in aad looga hadlo waliba dowladda iyo shacabka iyo dhalinyaradu arrinta loo kaco wacyigelinteeda waa arrin weyn oo badanka soo laabanaysa waxa la moodo dadku inay arrintan aad la socon khatarteeda iyo waxa ka imanaya waliba xilligan la joogo ay dowladda ay waliba nin la yiraahdo Nikos oo kamid ah madaxda waddanka Greek waliba kuwa ciidamada waxay sheegayaan xilligan la joogo inay baddu ay aad u kacsatay qaw badan iyo dabeyl xoog weyn ay jiraan taasoo ay sameeyeen inay dowladuhu dhinteen dhinaca kale wasiirka immigrationka ee wadanka Greega wuxuu qorayaa sanadkan gudahooda inay qabteen dib u celiyeen ku soo pushback ay ku celiyeen Turkiga 150,000 oo qaxootiya qaarkood tirada wadanka ay soo galeen khayr bay Virginia salaam alaykum